DJ Subeer iyo aniga iyo Hodan Cabdiraxmaan iyo asxaabtii dalmar ay close ka ahaayeen oo dhan waxaan ku faraxsanahay inaan ku guuleysano walaalkeen dalmar inaan baajino kana kansalno showga Australia hadal iyo dhamaantiis DJ Subeer iyo aniga iyo Hodan Cabdiraxmaan iyo asxaabtii dalmar ay close ka ahaayeen oo dhan waxaan ku faraxsanahay inaan ku guuleysano walaalkeen dalmar inaan baajino kana kansalno showga Australia sababta aan ugu soo hadlayna waa inaan ahay afayeenka fanaaniinta Soomaaliyeed intooda xushmada leh ee respectiga leh ayaan afayeen u ahay uma yihi inta saqajaamada ah ee fanka dalada fanka nala sheegata ee ciyaal suuqinta ah uma yihi aniga ee afayeen laakiin inta respectiga leh xushmada leh ee fanka wax ka taqaana afayeenkooda ayaan ahay maadaama aan ahay mid kastoo dulmi ku jira ama la dulminaayana inaan ama qabto ama dulmiga uga hiliya la dulminaayo ama aan u hiliya ama aan ugu hiliya inaan qabto ama aan dulmi lagu sameynaayo aan ugu hiliyo garabkiisa istaago fanaaniinta mudan afayeenkooda aan ahay walaalkeen dalmar hambalyaan ku leeyahay waxaa soo haray diini walaalkeen reer Australia diini iyo respect yaan ku haynaa oo ku xishmaynayna walaalkeena tahay insha Allah hawsha Australia ka socoto wax badan ka bedeshaan ayaan jeclaan lahaa waana idin jeclaan Angel Matkad Hamonaya horta anu meelaha ma daawaday waxa la ii sheegay islaantii orgiye ahayd oo dhahayso gudoomiyaha fanka ahayna yaa fanka dalad weyn waayo horta fanka isku soo koobin adiga iyo hada fanka ku soo koobin fanku waa weyn yahay majaajilistu leeyahay abwaan buu leeyahay musician buu leeyahay laxamiistu leeyahay heesaa buu leeyahay gabyaa buu leeyahay xataa wariyaha fanka ku jira you know that horta reebaadiinimada iska dhaaf qofiyay tuuladii yareedoo dameeraha ay ku raaci jirtaa kasoo oraday Mareykanka lagu keenay qabyaalada ku waalatay hadda waxa keentay laba fanaan oo sharaf leh oo Soomaaliyeed oo aan labaduba jeclahay dalmar yare iyo kiin jaamacina u kala hiiliso qabyaalad awgeed horta runta haddaan kuu sheego orgiyo dabaqaloocay inta dalmar isku jirtaan laba qabiil oo kala fog baa dalmar tihiin aniga kiin adeerkay inuu dhalay moogtahay oo naag Siciid Hartiye ay tahay ana naag Maxamed Hartiye ah aniga waxa rabtaa gabar adeerkay dhalay inaan korkayga saa ugu feenato yaa orgiyo ani hadda ka horan kuu sheegay dhuqdhuqo dhexyaala ka tahay social media dhuusa ka tahay fanka meel cariiriya jeceshay anna maalinta go'aan gaar waxayd maalinta ruufiyaannimadaada adreeska gurigeyga iyo informationadeyda aad dadka u dirdireysay maalintaas go'aankan gaarana ma taqaanaa dhuusa ma tahay ha era noqona anna waxa gashaba waa gala cidda doonta la hadalna waxaan ku dhahay Biden jeegagu bixinayo stimulation jeega hada ka soo hadasho jawaabta ana ku soo siinayo tutsi hada la hadasho hutsi aan jawaaba I don't care aan ku dhahay ani dabeecadeyda meeshan qabsada aan waa la ii gooyaa that is who I am hadda soo qabiil ugu ma kala hiilinaysid dalmar yare oo walaalkeena oo wiil fanaan Soomaaliyeed oo adu obsess ah ku tahay oo la wada og yahay maga adduunka dhan lagu ogyahay inaa obsess ku tahay xataa cunugaaga ah ku sameysay waliga aad jeclayd naagu qaba ka har ilaa hadda laga kari laaya saas oo ugu daba wado Soomaa waxa hadda qabyaalad ugu hiilinayso de qabyaalada ana kiin jaamac ugu hiilina that's my adeerkaya dhalay secondly fanka gadaalka gaar waxaad u dhihin kiin jaamac aabaheedna waa fanaan ayaduna waa fanaan waana dhal fanaan Hodan Cabdiraxmaan dheere waa dhal fanaan Aamina Cabdullaahi waxa dhal who are you adu fanka xagee dabada ka soo gashaa daba yaroy fanka xagee ka soo gashaa daba yaroy adiga where are you come from to the fun yaa fanku ah yaa ka soo gashaa qof fan ama talent ila ana kuugu sokeeyo hooyadaan ma jarteen baa wadaagnaa xagee fanka ka soo gashaa adiga daba yare meel aa ka soo gashaa fanka ma jirto marka kiin jaamac afkaaga ka saar uraaya aan ogahay waxa ku sameeysid afkaaga uraaya oo 17 bari aad saa u fadhido saa u marqaamayso darbiga kugu soo socdo ka saar kiin jaamac naag edablaha iska soo dhiginteeda kale inta afka rooseeta tobol caara soo marsato 70 naago isku soo dhiibeen meel aa soo fariisato naag sharaf la iska dhigin waxa taa waa la yaqaanay